markaan soo kacno waxaan ka sheekaynaa kaniin libaax iyo lacag waxa day nin baa meel soo fariisanay waa la dheerina wuxuu leeyahay daardiiniyow wallaahi bilaahi tallaahi 20 milyan baa lagu dhifan doonaa 20 baa lagu dhifan doonaa gabar baa imaanayso aniga cabsi ay leedahay kow waxa aan u tushanayno waxa inta aan ka sheekayna sida yibrihi waa dad jeebkooda xagee ku arag dad nasaba oo subaxdii markay soo kacaan ilaa habeenkii ka hadlaayo hunguri iyo dad jeebkooda waa go'een Soomaali waa go'an dhaqankii Soomaalimaa ka tagnay maantaasoo dhan waxbaa dhuunta loo qoyhaa diintii baa laga tegey islaamkii baa laga tegey dadkii masaakiinta ahaa baa magacyadooda la isticmaalayaa qabaa'iladii baa magacyadooda la gubayaa meeshaan waxaa dhacday waxba kaa qarqarin maye gurigayga gaadhan buu leeyahay gaadhankii aqal Soomaali baan ka dhisay oo waxaan keenay kii raashinka lagu karsanayay oo Soomaalidu isticmaali jirtay waxaan keenay sariir yar oo maqaar ah oo sariirihii Soomaaliya ah si guri Soomaali waxaan u kaysinay Soomaaliya ku yaalo oo kale si meelaha dadka lacagtoodii loo cuno oo qofka la keenayana riji loo mariyo oo boorash wajiga loo saaro qaab daran oo baahan oo gaajaysan oo gubtay laga dhigo riyo meesha waxa ka socday alwada cimrada ciyaar uma imaan waxaan u imid toobadkeen wey sida caadiga ma jirtaa talaa ka aqbalo laga aqbalo maray ma jirtaa وجهتك حرم إلهي تلقى حرم إلهي معاد اللي وحفلها قولتها مش قولك سوق بسنة قولك سوق الكدي ما معني صدقت أنا شلا سمع عدو الهستي أدو قد كان إبري أقول شيء يا بيسو وحنا كنا رمينا كل شيء أفر تمانكو عمامة صدق سدي waxaa go'aan lagu gaaray 14 caruur cimaamad isku time inaan soo dhajinay loogadana waa ku soo diraya cimaamad Soomaaliyeed inaan tuugadii dadka qabanay sida caadiga niyo TikTok wuxuu ku dhamaan ma taqaana annaga hadaan arag TikTok waxaynu ka fikirnaa way dadka jaabkoodii al dhaxay qof ma noola markaan soo kacno waxaan ka sheekaynaa kaniin libaax iyo lacag waxa day nin baa meel soo fariisanay waa la dheerina wuxuu leeyahay daardiiniyow wallaahi bilaahi tallaahi 20 milyan baa lagu dhifan doonaa 20 baa lagu dhifan doonaa gabar baa imaanayso aniga cabsi ay leedahay kow waxa aan u tushanayno waxa inta aan ka sheekayna sida yibrihi waa dad jeebkooda xagee ku arag dad nasaba oo subaxdii markay soo kacaan ilaa habeenkii ka hadlaayo hunguri iyo dad jeebkooda waa go'een Soomaali waa go'an dhaqankii Soomaalimaa ka tagnay maantaasoo dhan waxbaa dhuunta loo qoyhaa diintii baa laga tegey islaamkii baa laga tegey dadkii masaakiinta ahaa baa magacyadooda la isticmaalayaa qabaa'iladii baa magacyadooda la gubayaa meeshaan waxaa dhacday waxba kaa qarqarin maye gurigayga gaadhan buu leeyahay gaadhankii aqal Soomaali baan ka dhisay oo waxaan keenay kii raashinka lagu karsanayay oo Soomaalidu isticmaali jirtay waxaan keenay sariir yar oo maqaar ah oo sariirihii Soomaaliya ah si guri Soomaali waxaan u kaysinay Soomaaliya ku yaalo oo kale si meelaha dadka lacagtoodii loo cuno oo qofka la keenayana riji loo mariyo oo boorash wajiga loo saaro qaab daran oo baahan oo gaajaysan oo gubtay laga dhigo riyo meesha waxa ka socday alwada cimrada ciyaar uma imaan waxaan u imid toobadkeen wey sida caadiga ma jirtaa talaa ka aqbalo laga aqbalo maray ma jirtaa وجهتك حرم إلهي تلقى حرم إلهي معاد اللي وحفلها قولتها هذا عفز بيرتك قمتها يا إلهي واقف الروحين اللي وحفل بلغا يابا ما داعي إلهي وكتب على نفسه الرحمة إلهي نحرس بو اسكو دغاي إلهي سيدي سو نحرس بو اسكو قوري والله انت عباديسنيسو maxaa isaga dhaafo TikTok shaydaanka kugu baamiya
ما بتشوفين كربا أنا صوت قلي وأركي أنا عرب كتاجر حتى اليوم ماشي مركا نيكا تيك توك اسكال وانا سحر والله بلا وانا سحر والله بالله طلع عاو عندنا لعق هدرنا عاو 5 كل ضعف 4 كل ضعف كان تيك توك وسحر ولا تاجرنا annaga isku mashquulsan Soomaalida qolkayga ay 15 kun oo qof daawanayso waxa timid hal hornaag inta dhan sanka dhamburo inta ka soo baxday afka saas noqday atimid 3 kun oo qof ay u soo hartay waa kala tageen hadda garbaash ma bilaabay 10 kun 20 kun aga horo nin baa yimid dhahay naagtida markay telefoonka aan guriga wada galeen waa isla khubaysanaa in telefoonka shida kaamira anna waa shida khubaysi gale anna waa geli waxay hena dhahay dabeeto 30 kun oo qof baa daawanayso dadku xanaaqeen baa joojin akhbaarta wad haye khubays kadib maxaa dhacay dadka ay soo dhahayaba dadkii way rabaa waxaasay rabaa walaal maxay tahay waxay leeyihiin baxad الخبيس haye waa quur zaman weeye khubeyskii la wada galay haye khubeyska hadii la wada galay kadib maxaa la sameeyay sii weydii ay leeyihiin ha joojinina madaxweynaha maxkamadda ha joojinina ay leeyihiin haye marka hadda haye yow ninkaan sababta u mashin gariyey 3 qabiil buu mashin gariyey qabiil waa qarinay qabiilka aan qarinay waa ogaadeen laakiin 2 qabiil buu yiri waa in laga keenaa dadka oo gabdhaha laga keenaa oo habraha laga keenaa waa warsangeli iyo dhubaanta maxaa galay niyo ma jartaankiin waxa aaminsantahay ku sheegay aan runba aan kaga warrama mogta waa wallaahi waa billaahi waa tallaa dama jartaantiin waxa aaminsantiin inaad dhulbahantaha iyo warsangeliga iyo dashiislaha iyo kaskii qabaha iyo waraabeeyaha iyo jambeelaha iyo waxaas inaad gumaysataan oo ka caqli badan tihiin oo waxaad u sheegtaan ay qaataan aad aaminsan tihiin qofka dhulbahantaha qofka bajeetaanka maxamuud salmaanka wuu yeesaa qofka dhulbahantaha wuxuu u yeesaa mataqaanaa markuu rabana walaalkay ila dhasho dhulbahanto maxaan kula dhalinayo Saciid Harti oo leh bala ku ciyaade maxaan kula qasbay arday dhaqaajiyo qariyaha qaata muxuu nool dhalinay oo dagaalamaya marka waxay aaminsantiin inay askar idin yihiin warsangeliga iyo maalin hore ma daawatay war maalin hore ma daawato wariyaa gabdho warsangeliga calankooda wato laga guraya ma daawato oo laga aruurinayo laakiin waxba ku sheegaya meesha 2 nin baa ku dhig baxay oo nin dhubantay nin warsangeli yahay waa duuliyo sare nin la yiraahdo iyo cali duulani iyo dhubanta kale oo aad u badan iyo warsangeli kale oo aad u badan waa dadka ugu baarisan oo meesha lacagta ku diray sababtaas weeye pointiga uu leeyahay labada reer waa in la keenaa reerka labaadna ogaadeen bay ahaayeen nimanka makaayil iyo nimanka reer cabdille marka waxa galay kowliska galay lacagta gashay arusan u arkay weeye aragtida ma wallahi may fiiri muxuun meeqa giftar oo waxa joogta meeqa giftar xisbi xam soo qabto wanaagsan ka wanaagsanaya meeqa giftar oo ma jeerteen ciidda ka badan ma jeerteen qabiilka daarada u giftar badan waay haye tan qolka xun Soomaaliga oo aan gaastay labran keenay 2 habrood baan keenay labadoo waxay ahaayeen ayaguna reerka ma ahayn laakiin Umar Xamuud baa ka soo dhigay Mareykanka waa taqaana xilligu soo galo waa Ingiriiska waa xilliga waagu bariyo weey waa laga carareenba meel ay aadeen kaalshay marka tabcaayaan kaamirada ku daaro mash sufriisiin warniyo aakhir wala heesta warniyo ilaahay ka xabsada wallaahi oo bilaahi oo tala waxyaaba Allah ka tabtama jira waxa aad sameeyaysiin ma jirto dhaqan xumadaas oo Soomaalida ka baabiye ma jirtano waxaad ku baabiisay dhaqan xumo qabiilka kaliya ee la soo helay ee si qubo wadada way ilaahay ka baqan daardir waxa jira wallahi ma jirtay walaa dheeriyo bilaahi waa Ingiriiska Afrika laakiin dad baa jireen lagu soo daray oo reerka ah midka idinka Cabdi Ilay hadda ka hor Cabdi Ilay ma xasataa dadkii oo howlo qaasinka howlihii ilaahay ka baqaya markii ay u tiri ma jeerteena aanay janno ku marjeeni laakiin ilaahay waxaan ka rajeynayaa tuugadaas soo bandhigaysi daacadda ay qalbiga wanaagsan 2 arrin ba ilaahay ka rajeynayaa marka hore ilaahay waxaan ka rajeynayaa janno ku geeyo saasi kale janno ku gilmaysid
جبتها طيب والله ما وقتها انا قف مسكين كوجر جاره وحقك كحله انه انت الهي جنك هو جيره موقت هاي waa warxib naagti meeday jannada ku tagtay naag sidii social muta marka arintaan oo kale waxa way arin wax weyn baa kugu dhex jira daar diini wallahi billaah tala codka soo dirashade codka soo dir wala ashade dadkii oo dhan baa igu qaylinay codka sida leey warka laga dhaaf keen ayaa معير أقرأ سؤال رسوي أقرأ سؤالي ريا الله يقان ولا عيد سودو ما حدا ودي عيد سودو مريا ناقول بانتا ناقول سنجري كين أنا قبل كين قبل ناقول سنجري بانتا نيو أنا ميدان لا يابا نيكي داير ديننا هاي وعليها gurigii maxaa dhigi jiray isheeg agtiisa waxa ka dhistay jinkad xalay saa u yaabay jinkada iskulaha xabado cabto ee meelaha joogta darbijiif iyo waxbaa raadinayaa meeshan soo gelinaya macnaha kadibna waxay leedahay arkurida iigu soo rida bay leedahay wararka kale maanta ugu waaweyn waxaa ka mid ah kuwiisasa iyadoo Toronto dhex wareegaysay naagas dagaaleen dabadeedna kuwiisasa waa la riixay waa la tuuray laakiin ugu dambeyn lugteeday siibatay naagta daqar wash hadda maanta mar dhow iyadoo xarunta booliis iyada joogto ayay ma arkin soo wacday waaba naagtii lugu ku daqarta lugti lugu beera ugu jirto umada ku dagaalantay rumiya marka kuwiisasa asaga xala keentay asagoo alwaax ugu jiro lug alwaax maxamed diiriyo arrinta ka fogow kiis adag waa wala xamuud baalka ku xiran hada ma soo gartaa yuboso maya ana horta kuwiisasa xala been iga sheegtay waxay tiri you boss weli waxa waa ii sheegay suraag hoostiisa maanta qof oo kamerad ii qabataan waaye laakiin waxaan rabay dabagaaban qabta magaalada wareegaan faad saa u wareegay dhowr naagood ay soo fiiriyeen ana marka waa shakiyey ana buufisa qaba mogtaa bacay in kameri wax lagu xadado aan ka baqan faad adoo sii jeeda haddii lagu sawirana wareer waa mugda buuqa lagu kufri karaa marka kulley anaga hadda waxaan ka sugaynaa qaybta labaad waa liig gooniya sugaynaa inuu kaamirada furto oo ma arkino maadaama berida qayb dhan ay maqanta la sheegay taasaan sugaynaa aniga walaalayaal buuqa layga daayo samaynaye waxaa dhan kuu soo dirayaa naag baan soo fariisinayaa إن شاء الله كنت على يا بنتي شنو طلبي الله يرزقك الله يفرج همك يا رب انت والموجودين يا بنتي الله يساعدني ابني ظاهر هو والموجودين والحس بدي حق فراغ لباس لي وللاطفال الله يوفقكم الله يرزقكم يا رب akoonka anaa samaynaya magaxnaageed baan ku samaynaya waxoo dhan baa xirayaa kadib iyaga baan qol gurigayga keenaya waa fariisinaya xogaageedana waa siinaya iyada oo kaashkaa intaas almeenkaas oo xir naagtaasna waa inay dhulbaxanta ama maxaa dhihi jiray warsangeli waa inay xalka noqotaa magarata warmeesha ka wada shaqaysanaa wixii shuruuda iyo naqsiixaayo iyo maqdisiga qaliisku dhan xoolaha u joojinaya iska dhooyo iska dhooyo wax macnaa aniga hadda igu fadhiya askari maalin kasta waa maqlaa xashireynaya hadduu yeelan rabo danu bixinaya marka waxaa lagaa أعوذ بالله ذلك توجا كده هذا حتى لو بدك وصل دارك مصيبه دار ومصيبه نادر والله ومصيبه gabar waxa arkay hore la caawiyay oo joogta ayadana qolka sidoo kale ogaadinayna ahayd oo ilmo biciidaan dhashay oo la yiri akoonkeeda inta cunugiiro ku soo bixinaya wixii lacag kala baxay wixii lacag waa kala $6,000 ka dhacay $6,000 marka waa musiibo $1 kama gaarin gabadha walaha masaakiinta qofka cunayana waa qof ilaahay yarsuugsa ana aqoon oo qowadana waa ka soo bixi doonta wallahi أصولك وحكوا لك مثل ليه إيمان قال لك هذا ورقبنا عاوية غيري أنت برنامجك صعود